marka jiro ka sheeg maanta carabaa inaan kusoo qaato qarnaqsi aan u dirayo walaalahay beesha habargidir aan rabo in aan u gardhigto qarnaqsigan waxaa uu furan yahay aan rabaa inay kasoo jawaabaan abwaan dhunkaal daari calasow xil guntade iyo jamaal galley maadaama nimanka social media beesha habargidir ugu hadlo oo hadallada xanafta leh oo dadka u wanaagsaneen walaalahood u wanaagsaneen markasto fariimahaas meesha kasoo faro waxaan rabaa beesha habargidir inaan u sheego annaga haddaan nahay mudulood waxaan nahay miftaaxa kaliya ee soomaali furi kara xiri kara taas markaan leeyahay waxaan keenaa isbaat waxaan keenaa waxyaalaha aan hadalkaas ku ereeyo sakin waxaan rabaa beesha habargidir inaan u sheego kale annaga sida idinka aaminsantihiin aniga ma aaminsan anaga walaalnimadiina waa aaminsannahay laakiin idinka walaalnimadiina waxaa ku kaban inaad dhul naga xoogtiin ina anagana boobtiin ina anagana gartiin ignorante dad aan wax fahmaynin oo doqomo ah oo layska boobsan karan anaga tihiin anaa umalaysin war waxaan idin sheegaa ninkan maanta maasala la leeyahay oo joogo nisa meesha ku khudbayna intay ahayd meeshiina ma meel inaad ka samaysatay aad ka khudbay karteen habartiin kuma dhicin meesha ku khudbaynayo oo tagay waxa waaye kaaraan waaye marka kaaraan waxaad ogaatiin hooyadii muqdisho dhashay kaaraan waaye kaaraan meesha aan awoodayna ay taalo oo macnaa cid kastoo cirka iskiliso oo dhulka wax samayso meesha laga jibiyey meeshaas waaye marka kaaraan haddaad u aragtaan inay meel mugdi oo waxba ayna ahayn kaaraan anaga waa nagala kaah badan tahay waa nagala nuur badan tahay New York iyo Washington iyo waa nagala nuur badan tahay sakin waxaan rabaa inaan u sheego generaalada daafacay oo si cad u daafacay waxay ahaayeen generaaladeena cali mahdi maxamed awoodow wuxuu u yeeshay inuu miis garaaco oo yiraahdo mudulood wuxuuna rabin cid ka dhaqaaji karta ma leh saddex mar miiska qaw awoodiisa gaartay mudulood waa aragteen xamaray waxay ku qabsadeen shir jidadkoo dhan ay xirteen maxamedullah farmaajo joogo awooddaas ay leeyihiin habargidir marka waxaan rabaa inaan u sheego 8 oo hal gabar ku jirto uur sida la sheegayo ayaa koobahooda lagu duugay war haddaad xoog leedihiin haddaad macnaa dad dili kartiin dowladdii markaas kugu suubisay maxaa oo la dagaali weysay maxaa oo la hadli weysay maxaa xataa meel inaad soo istaagtid saasaa dhacda u dhihi weysay ninkiini la xiray ugaaskayna iyo imaamkayna dooneen xabsigaa laga soo deeyey khudbadaa loo qabtay waxaan ku yidhi waa la raaligeliyey intaasne anagaa samaynay anagii saas aheenoo wax kasta samaynayni ayaa waxaa naga dhigaysiin dad aad muruq kula joogtiin muruq wax ugu xoog badan tihiin muruq wax uga qaadan kartiin ayaa naga dhigaysiin marka waxaad ogaataan annaga waa idin cisnaa walaalaheenaad tihiin wanaaggiina rabnaa laakiin wanaagga maalintaa diidaan shalito soomaali maxamed aa noo soo kaxaysateen maanta soomaali idin rabto inay jirto ma filaayo markaan laakiin markii ay naqato in laysku dhaco waxay imaanaysaa in laysku marto waxaad aaminsantihiin meesha waa ka baxayaan laakiin maanta haddii la yidhaha saraakiil haddii la yidhaha ciidan haddii la yidhaahdo biic mushtari haddii la yidhaha wax kasto waxaan nahay number 1 alora beesha walaalaheen iyo habargidir hadday wax kasta oo lasoo suubiyey ay leeyihiin anagaa yeelnay war aad abaal u ogoleen kii walaalka ahaayo shalay gacanta ku soo qabtay oo wax kasta kula qabanay oo wax kasta kula sameynay haddaad horboodaysid aad leedahay hebel anaa dilay hebel anaa qarsaday hebel anaa cunay hebel anaa yeelay hebel anaa dagaalka wixii anaa haddaad leedahay waa dhibaato qarnaqsiga markaa idin sheegaya waxa waaye beesha habargidir waxaan rabnaa waxa aad sheeganaysiin meesha aad ku samayseen magaalada muqdisho waa la yaqaanaa markaan anaga kacnay kaliya ayay waxaysantay kasoo bilaaw farjanno ilaa inta
على سوديره محمودين بدر dadka soo waday ciidamada waa la wada yaqaanaa anaga ma dhihi weligeena habar gadir wax ma soo banin war hadda anagii oo wadankan intaan ognahay u soo marnay aan rabtin inaan indhaha ciidan nooga shubtiin wax suuragalaya maaha second waxaan rabaa inaan idin sheego maxamed faarax ciidiid anaga ma soo qaadno maxamed faarax ciidiid miiska ma soo saarno anaga waxaan ku wanaagsannahay waxa waaye wixiina gudbay waana gudbeen ma soo celino maxamed faarax ciidiid idinkaa miiska soo saaraysiin maxamed faarax ciidiid idinkaa ka hadlaysiin maxamed faarax ciidiid inuu geesi ahay oo dad laayay idinkaa sheegaysiin alloora falcelin hadday ka timaado warkiina godkii idinkoo idinkaga jiri layahay maxamed faarax ciidiid laakiin annaga maxamed faarax ciidiid wax maanta hadal oon ka soo jeedin habeenaatee ma jiraan marka waxaa la rabaa inaad dib iskugu noqotiin hadda wadanka waxaa ka ee madaxweyne xasan sheekh maxamuud anaga xasan sheekh maxamuud wuxuu noo qabtay iyo wuxuuna siiyey ma leh maanta idinku tuhmayna xasan sheekh maxamuud xasan sheekh maxamuud dhul ha la dumiyo oo la yiri oo dadkoo dhan laga duminooyo dadkii shalay u dagaalamayay oo anaga ka joogi weynay oo na soo wacayay oo war maxaa ugu dhagan tahay madaxweynaha in adeerkaa waa walaalkaa waa dhahay maanta ayagaan ka celcelinaynaa marka anaga meeshii aan shalay joognay aan weli joognaa marka beesha walaalahayga ah ee habar gadir waxaan u sheegaa niman intaasoo iskaale ee soo dhaafayaan nahay maxamed siyaad barane 21 sano wuxuu xamar xukumayay anaga raalli ka ahayn abgaal ayaa raalli ka ahay mudulood ayaa raalli ka ahay maadaama mudulood uu raalli ka yahay cid qori agtiisa ka jabsan karti ma jirin hore aan loogu sheegay waxa la maalinta mudulood kaco waa lagu cabsadaa Soomaaliland aswaashiyo wax kasta la suubiyo كل مسألة سميه SDF على سميه SBM وحصل سميه انت سو حال سميه او جبهه على سميه ولو إما واي محلو إما واي بركي أبقالو كتير سناي مركي أنا أين قدمت مد علي مهدي إله ورحمته بروفيسور جمعالة إلهي أسيناه ورحمته أسين إله ورحمته جير مدحي إله ورحمته إيطاليا وأوجدين إنتان كصوم مرني USC سمينتي دي وحيدي وحروا هرت إنا إدين شيء غريلينكا غريلينكا وحوايه وحكو يمد عقلي أنا كنت أقول هبل قدر إني حوك يمرق غريلينكا سوكو يمد ما كو إيمانين واد أكتين مركز توعد بوبنيني بنادر يتربوك عند دافنيني واسكو سو نقنيني مركز سو نقنيني وحاو سو نقنيني لو شيء قبل مثلا نقولكيس لوغ عدكا كر ayaa jira mase waxa jira taariikh aan leenahay oo dhul laga qaatay anaga ma jirto taas waxa uu sameeyay waxay ahayd dagaalkii lagu bixiyay maxamed siyaad bare ragga saraakiisha iyo doctori tutti waxay u badnaayeen beesha abgaali u badnaayeen waxaan diidaynay anaga iyo habar gadir inaan isku marano oo dhibaato badan gaarto dhimasho badan ay timaado cadawgeynina uu joogay afgooye iyo carmiska marka haddaan isdilno oo annaga juf iska dhigno iduuli tigantil tersa gooda imaanayo labadii dagaalamaysay kii ka faa'iidaysan lahay derbigaas uu taagan yahay marka waxaan goosannay greenlandkaas inoo iska jiro annagana aan dagaal idinku soo qaadin laakiin iska kinyurayno horta greenlandka saasoo ku yimid ee kuma imaanin awoodda aad idinka leedihiin aad wax ku qabsan kartiin mase xoog nooga qaadan kartiin kuma imaanin midda labaad oo rabo inaan idin sheego waxa waaye kaaraan waa torabore waa nostro nascondilio waa meesha godadkan sidii xamaas oo kale godadkeena meesha ku yaallo meeshaas waxa waaye dowladda laga ilaaliyaa hadday si fiican u dhaqmi weysana waa laga ridaa hadday si fiican u dhaqantana waa loo sacbiyaa anaga meesha oo kaliya oo muqdisho ku ilaalino kaaraan waaye waad ogtihiin
markaad isku qaadeen aad kaaraan tagteen oo ciidiid kaaraan aan qabsan inuu yiri oo kaaraan galay hal saac ma ku jirin hal saac waa aragteen sidii la soo buubiyay marka xaqa soo doonti kaysanay korkaada isku soo kuday markeen ilahay waqtigaas ay ahayd marka meeshaas toora booro waaye waa aragteen madaxweynihii hore ee waqtigiisa dhamaaday maxamed cabdullaahi farmaajo markuu 2 sano ku darsaday labadii sano oo ku darsaday tiknikada aan soo dhiganay baabuurta aan la nimid bashiikiyaasha aan la nimid ciidamada si u soo farbaxeen marka badbaado qaran la sheego dhanna waa annaga badbaado qaran kale ma jirto hadda xasan sheekh sidoo raba haduu yiraahdo saana raba on anaga ogolaana cid ka ridi karta xasan sheekh kursigaas wallahi cid ka qaadi karta male meeshaas waa fadhina waligiis waa fadhina noloshiis waa fadhina maaha inaad idinka ku faantiin badbaado qaran inaad tihiin maaha inaad idinka ku faantiin saadaq john inuu waxaan sameeyay saadaq john hal saac u hadlay hal saac ka bacdi meel uu ku dhunto waay war saadaq john yaa u diray baabuur ta oo lagu ilaalinayaa u diray waxa u diray generaal koronta u diray marka uu tagi wuxuu yiri war saa ku soo marteen godadka ayagoo godad qodanayo wala waxaas maahane waa nabad galaysiina suga macna meel uu ku ido waay airport la geey inta la geey si kasta la yeelay wuxuu yiri waa ka taqalusay maxamed cabdullaahi farmaajo waxaan rabaa horta inaad beesha habargidir walaalahay ay ogaadaan iyo Soomaali weynba 60kii baarlamaankii la soo dhisay ani waxaan ku lahaay 13 dibutaato ee 3 wasiir tahay waa 120 xildhibaan waxaan ku lahaay 13 xildhibaan ee 3 wasiir tahay waxaan ahaa ninka sharciga maanta dastuurka maanta Soomaaliya ay wili ku dhaqmayso oo dastuurkan la iska daba gidinayo lagu daboodo laakiin kan background-ka oo loo noqdo kuwa dhig oo qoray anaga waay dadkii ugu waaweynaa professoryaasha markaas jireen anaga u badneen saraakiishana anaga u badneen marka waxaan rabaa 60kii markaan ka soo gudbo aan imaado inqilaabka markuu dhacay oo maxamed siyaad barre oo inqilaabay meesha la inqilaabay inqilaabkaas waxa suubiyay nin anaga naga mid ah ee anaga naga dhashay ilaahay oo raxmado salaad gabayare meeshaasna waxaan ku lahayn ilaa 3 ilaa 4 aan ku lahayn golaha sare sakin waxaan rabaa meesha habargidirna u sheego kale nina marka shalayna idoo la leeyahay Soomaali maxamed waxa dhisato oo 2 sano Ali Mahdi la siiyay ayaa ay weelka idinka jiri weysay meesha hadda joognayna keentay hadda oo dawlad noo dhisan tahay xasan sheekh wali idinka garbaha idinku sito idin xambaarsan inaad haddana muruqan ku joognaa meeshaan kanan ku joognaa tiraadaan waa laga fiican yahay qarnaqsigan waxaan usoo baahiyay waxa waaye in aan wax wanaagga aan ka hadalno aflagaadada iyo caayda iyo waxyaalaha aan loo baahneen in la iska dhaafo dameerahan la isku caynaa iyo kulli anaga dameero ma dhaqanno ma naqaano dameero waxay ka yimaadaan galmudug ay ka yimaadaan laga dhaqdaa meesha laga dhaqdaa oo gawaan oo ku soco kara anaga dhulkeena waa dhul meerte dhulkeena ma ku soco karo dameer ma dhaqana anaga haddii xamar cid kasta ku wadato abgaal kaligiis kuma wato marka waxaa idin leeyahay beesha habargidir dadka social media ka hadlayaan ogaada wax le dhabjinaysiin wax wanaajinaysiin waxaan leeyahay dadkan dad walaale waaye si wanaagsan iskugu wada haddaa si wanaagsan iskugu wadi karina iska aamusa haddaad aamuseenina haatuu burhaan